Adduunyadu waa meel yar oo kooban isla markaana ka bilaabanaysa maalinkaad dhalatay kuna soo idlaanaysa maalinkaad dhimatid ood ifka ka masaafurayso. Qof walba oo dunidan ku nool waxa uu la kulmi doonaa caqabado kala duwan oo soo wajihi doona inta uu nool yahay. Hase ahaatee, jacaylku waxa uu ka mid yahay caqabadaha ugu badan ee Muslim iyo gaalaba ku reeba maskaxdooda walwal iyo cabsi soo wajahda inta uu nool yahay. Qisadan waa qiso jacayl oo dhab ah oo dhex martay mucaashaqiin Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Cabdirashiid Maxamuud Cumar iyo Habboon Maxamuud. Waa qiso jacayl oo dhab ah. Haddii aad moodid riwaayad iyo mala-awaal adiga lagaa gadayo isla markaana lagugu socodsiinayo, waxaad ayaa ku marayaa waa qiso jacayl oo dhab ah oo ku dhacday dhibana Cabdirashiid Maxamuud Cumar oo ah mucaashaq la dhiban jacayl uu u qaaday gabadha uu aadka u jeclaaday ee lagu magacaabo Habboon Maxamuud, oo iyaduna mar dambe noqotay gabadh aad u jeclaatay Cabdirashiid Maxamuud oo markii hore u jeclaa. Qisadan jacayl oo ay ii soo gudbiyeen labada mucaashaq in aan la wadaago guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta Muslimka ah ee dareenka naxariista leh uu ku jiro, ayaa noqonaysa mid ka mid ah qisooyinka ugu xanuunka badan qisooyinka jacayl ee Soomaaliyeed iyo dhammaanba baraha ay Soomaalidu ku kulanto. Habboon waxay aad u jeclayd Cabdirashiid oo markaasi joogay dalka Jordan, gaar ahaan magaalada Urdun. Cabdirashiid sidoo kale isaguna waxa uu jacayl aad u daran u qaaday Habboon oo markaasi ay isku barteen baraha ay Soomaalidu ku kulanto ee Facebook. Isbarashadoodii kadib waxaa la galay haasaawo dheer kadib waxay isu beddeshay sheeko jacayl kadibna waxayba aad iskugu qaadeen jacayl aysan filanayn, taasi oo lama filaan ku noqotay labadoodaba. Haddana waxa ay kala joogaan dalka Jordan iyo dalka Germany. Waayaha jacaylka iyo xiisaha ay isu qabaan ayaa kala geysay in midba midka kale uu fariin uga diro qaarad. Sheekadii waxay socotaba Cabdirashiid ayaa bilaabay hadallo kaftan ah oo markaasi u ekaa inuu ku soo jiidanayay Habboon oo ay barasho kadib ay wada kaftameen. Sheekadu waxay socotaba Habboon iyaduna waa ay la kaftantay umaaseedyo iyo weliba waxaa la isdaba marsaday oraah jacayl. Waxa ay sheekadu socotaba Cabdirashiid waxa uu dareemay maalmihii dambe in uu jacayl daran u qaaday Habboon oo ayba maalmo keliya is yaqaaniin. Waxaa la isdaba marsaday oraah jacayl. Oraahdii ugu horreysay ee la dirayna waxaa qoray Cabdirashiid, waxa uuna u qoray Habboon oo ahaa gabadha uu jacaylka aadka u daran u qaaday. Waxa uuna u diray: axdi been lama galo, wacad lama ilaawe, ruuxii ku aamina lagama idhasaabtee. Hase ahaatee, Habboon oo iyaduna ka jawaabaysa fariintii ka timi Cabdirashiid ayay tiri: